deegaanka sharaf weyn ee galbeedka magaalada Boorama ayaa laga hirgeliyay isla markaana laga dhisay dugsi waxbarasho oo ka kooban 3 fasal kaasi oo ay dhistay ururka samafalka ee Maize Charity Organisation oo ah urur ay ku midoobeen jaaliyada dalka dibadiisa ee gobolada galbeedka Somaliland 15 Juun 2013 ayay ahayd markii la dhagax dhigay waxaana goobjoog ahaa munaasabadii dhagax dhigida sidoo kalena dhagax dhigay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Awdal oo ay ku wehelinayeen duqii hore ee degmada Boorama iyo mas'uuliyiin kale hadaba qaar kamid ah saraakiisha sarsare ee Maize Charity Organisation ayaa ka hadlay goobtaasi waxaana ay ka warbixiyeen ujeedooyinka iyo baahiyaha keenay in la dhiso dugsigani ayaanu waxaan garanay in aan wixii ka qaban karno aan ka qabanno anagoo runtii target garaynayna qayb waxbarashada meel kastoo jooga beesha aan ka ka soo jeedno meel kastoo joogaan beeskaygu inta badan waxaan xooga saari jirnay magaalada Boorama iyo magaalada Darwanaaji ayaan ku horeysiinay marka sanadkii hore wacdaro ragga hortii waa laga sheekeeyay wacdaro waxoogaa waan ka dhignay magaalada Darwanaaji san hore u sheegnay mataqaana masjid baan ka sameynay iskuul baan ka sameynay dhakhtar baan ka sameynay waxyaalo badan baan ka qabanay gaal waxay mataqaana sanadkii horeeyay laakiin mar labaad ka inaan ka sii badin ayaan doonaynay oo degmadan oo kale ah iyada maanta oo kale aan degmadan aan dhagax dhigno wixii u baahan yihiin ee asaaska nolosha ka caawin karno inaan ka caawino ayaan u siiyaan u nimidnay markii aan maanta dadka wareystay deegaanka wareystay runtii aad iyo aad ayaan u argagaxay markii la yiri meel beexa iga dhamayso 100 mitir jirta waxyaalaha ay hesho anagu maan helo another 200 mitir markii yiraahdeen ma taqaana beesha waxa hesho anagu maan helo bulshada deegaanka Sharaf Weyn oo iyagna goobtaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda deegaanka waxana ay yiraahdeen meel kasta ka soo bilowday dhaqaale hoos u dhacay ma arko iska liita dadkii milkiilaha ka tagay magaalada baa loo kaloo وكبرنا لهم تجربة حوالية وحن لهم العيال وذلك يدين فاية عقل شده وحن ما شغل من يدين كان الله يدين كأني إما تغرقتان عمود محمد عصابك كوكب بين ماشي ليدته هل كان بيا وحن من السجاد كائن وتونتان بورا حد كيتوبيا حاجة ستوان دي لقب سوين إن قربت بها كحيجة بورا أنت سوجيتا hadaba maalintii shalay ayay kulan ballaaran lagu qabtay saddexdii fasal ay hirgeliyeen ururka Maize Charity isla markaana waxa goobtaasi laga soo jeediyay hadallo kala duwan waxaana ka hadlay mas'uuliyiin iyo dadweynaha ka soo jeeda deegaankaasi waxaana ay yiraahdeen maanta laga bilaabo intii karaanka iyaga waxaan ballan qaadaynaa wixii qiimaadana inaan soo gaadhsiino insha Allah ta'ala qodob waxa weeyi mid aan ugu mahadnaqayo dhalinyartii u soo quuday dadka walaalahooda aqalka maanta aan hoos fadhino inay wax ku bartaan jeebkooda uga soo quuray dawladdu ma dhisina iyaga u dhisay taa waxa lagu mahadnaqayay dhalinyarta waxaan leeyahay meesha hawl badan baa taala madrasadaan ka sameeynayna masaajidkii waa ka la dhameeyay iskuulkiina way ka dhameeyay meel yaroo caafimaadana waa la noo soo ogolaaday inaan keenaan wadnaa هكذا وتامو قطوع حياة قبضنا ما لأنه دليرتي جيب كودا صوباري إنه والبيسقو حمالنا يوحيو كحماشي دت كودا الصقوري أقل كي وكان ما تلاقوا بلا بيسكول هو يدك هواتكم ما تدين هنا كدالين على تاسو isku soo wada duuba ururka Maize Charity Organisation ayaa wax ka qabtay baahi weyn oo loo qabay waxbarashada aasaasiga ee deegaanka Sharaf Weyn waa Cabdiraxmaan Ali Said Cabdiraxmaan Xidig telefishinka madaxa banaana Bulsha TV magaalada Boorama